الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استمرك إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي ما هذا كريم ما هذا وحكى ما هالنقية وحوي عد على عد كسر شقيسي هشيس كان إيو odayaashii guurta ka soo shaqaysay mediationka iyo akademiyada way aad u mahadsan yihiin waxaa idna mahadle anigu xoog baan u saarnay arrintan inay doorasho dhacdo haddaan cudnahay anuu shaqsiyaana wiigii u dambeeyey ilaa 9 qof baan u diray in la joojiyo arrintan 15 bisha khudbadii madaxweynaha taasoo uu arkay wax aan suurtagal aan ahayn laana waa mamnuuc sharcigu ma sheegayo in la isku adeegsado awoodda madaxtooyada in la isku muquunsho in dimuqraadiyadda absolute power ma jiro dimuqraadiyadda waxa weeye check and balance baa jira sharciga lagu kala socdaa marka waxaan arkaynaa anagu in arrintaasi tahay arrin laga tegey issue la isku hayay oo noqotay shakhsi weerar iyo shakhsi iska celi ee noqotay heshiiskani waa guul maanta Soomaaliya u timi Soomaaliya guusheedu waxa weeye inay doorasho dhacdo adduunkana inaga sugiyay inaga danteena waxa fadhiya halkan golayaal aan sharci ahayn muddo dhaafay dalka wax alle wax ugu sooyaan jir anagu madaxweyne horena waan kula shaqeynay aan jecelahay in marku dhamaado khilaafka la joojiyo taladu waxa ku fiican tahay in la wada yeesho aday qofka talada adaa ku banaad uma baahnid waxaan jecelahay haddaanay jirin harmonization asxaabta iyo executive ka dhaxeeya oo aan isku calool sameyn inuu khilaaf soo noqon doono issues oo la isku qabtaa waa lagu murmaa laakiin ma jirto hatred iyo vindictive iyo cadaawad waa laga saaraa saasaan ku shaqeyn jirnay saasaan intaasoo madaxweyne kula soo shaqeynay waxaan jecelahay in Soomaaliland waxay ku caanamaashay ismaqalka wada shaqeynta dadaalka ka dayna khilaafka at least ka dayna haddaan deliver gareynin baahidoodii inaynu dushooda isku haysta ka dayna anagu waxaan kula diyaarnay madaxweyne inaanu kula hirgelino wax alay waxaad nooga baahan tahay labada xusbina aan kula diyaarnahay international waxaan jecelahay inay iyagu roolkooda ciyaaraan wixii ku soo qayb gala xagga dhaqaalaha keenaan ayaan diyaar aan idan ka codsanayaa waxaan wax ku noqon karnaa wada jir waxaan yoolkeena ku gaari karnaa wada jir waxaan dadkeena hor u marantaa wada jir rag isma celiyaan baa la yiraahdaa waxaan jecelahay inaan isgarab galo dhalinyarteena niyadda u dhisno wixii dadku inaga sugayeen qabano sharciga ilaalino sharci haddaan lagu kala socon ما إيمان سخير وإيمان شرعي إلى لنا ليسكت داية انترست كشخصية قبيلة ليسكت داية أنا يا عبد الرحمن لو حسبك على السياسة بانهاي هذا يدا أنو إسكولير أبسطنا هاي ذيك على السياسة بانهاي ما كان أنا قال نو أركنا ما كان يلا حوا إسكولير نقولنا لو إنه إسكوليرة يلا نو أركنا ذي مد 20 وأنا institution أنا آمنة يعني لو أبترين يعني لنا ورث family بين نقولنا يعني نكلا قارن رئيس عملاء ما هو كم هاد سنت يعني هنا كم هدي جماعة قبضنا نيو بيتش أم بلابنا أنا وحيد تركوا ما قبلنا أين هوشة وكل قبلنا قال لا وحي واجب كان إن شاء الله له وكوف ذين دونا ولا أذوق ساري أنت بدني أنا وأكو قرب تاجنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa munaasabaddan maanta aynugu nimi curinta heshiiskan maanta aynu hor yaalla
kaasoo suurtogeliyey inaynu isfaham intii hore ka dhow isugu nimaadno iyadoo xalku yahay in doorashooyinkii golaha wakiilada iyo deegaanku inoo qabsoomaan sanadkan aynu ku jirno gudihiisa. runtii dadaal badan baa jiray oo dad badan ay sameeyeen, ama axsaabta ahaadaan ama bulshada waddaha ka tirsanaadaan, oo doonayey in caqabadan doorasho la-aanta laga gudbo iyo muranka siyaasiga ah ee inagu raagay axsaabta iyo xukuumaddaba. waxaan si gaara u xusayaa runtii madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saydici aan is leeyahay iyadoo in badan in la wadaagtay aada buu ugu dadaalay in arrimahaasi isfaham iyo guul ku dhammaadaan. dee guddigii dhexdhexaadinta laftooda way dadaaleeno heshiiskoodii waxbaynu hadda ka qaadanay halkan, iyaguna runtii waa mahadsan yihiin. waxaan kaloo jecelahay maalmahan ugu dambeeyey inaan xusaabtigay cali ibraahim oo isna aada u dadaalay maalmihii ugu dambeeyey. waxaan runtii dee shalay waxaynu haynay wax kale maantana oo ah in doorashadii aynaan rajo badan ka qabin, laakiin ama urur la furo ama hawl kale la galo. laakiin maanta alxamdulilah rabbil caalamiin waxaynu ku soo noqonnay inaynu u wada guntano sidii aynu uga midho dhaalan lahayn doorashadii inay qabsoonto. axsaabta way ka go-an tahay, sidaa adiga kaaga gaantay madaxweyne, in doorashadii la qabto. waxaana rajaynaynaa in heshiiskani uu noqdo midaynu ku guulaysano, sulxu xudaybiya noqdo insha allahu, kii aynu kaga baxaynay murankii iyo in doorashooyinkii noo qabsoomaan noqdo, ka duwanaado kulamadeenii hore iyo heshiisyadeenii horeba insha allahu. heshiiskan waxyaabo ku cusub dee somaliland baa ku jira. guddi qura inoo qaban jiray doorashada, laakiin maanta waxaynu ku heshiinay si doorashadii inoogu qabsoonto oo xeegana xeega u noqoto, ilkana u nabad galaan, in commissionka jiraana jiro, guddi kalena oo isugu jira commissionkii hore ee qaranka iyo ajanabiba ay noo qabtaan doorashadii. madaxweynkooduna uu ku dhammaanayo saan heshiis ku qoran san filayo markay doorashadu natiijadeedu soo baxdo. waan soo dhaweyneynaa heshiiskaas, waxaanan ku rajo weynahay inuu noqdo heshiis aad looga banaan degay oo aan insha allah waxbay nagaga soo noqon, oo shuruucda loo eegay, oo caqabado sharciyo dambe inaga hor imanayaana aanay jirin. waxaa inoo waajibahun sida heshiiska ku qoran maanta u dhaqan gelaya marka la saxeexo. marka diyaar baanu nahay wax kastoo nagaga soo aada hawshaa fulinteeda iyo dhaqangelinteedaba. waxaan rajaynayaa waktigaa aynu qabsanay 2020ga in doorashadii noogu qabsoonto. aada iyo aad baad umahadsantihiin. halkan xisbiga kulmiya iyo xukuumaddu waxay u yimaadeen in xal loo helo oo mudnaanta doorashada la siiyo. waxaanu doorbidaynaa inay doorashada baarlamaanka iyo dowladaha hoose ee isku skan inoo qabsoomaan. haddii aad qoonsanteen waxaanu qabanayna taas baanu u soconnaa. haddii idin aad tidhahdeen doorashadaasaanu anaguna u soconnaa sida isoo gaadhay, annaguna taas baanu doonayna. maantana waxaan jecelahay in badan baynu ku wareegeysanay inaynu doorashada awoodda saaro. marka kooxdaas waa tii kulmiye
saasaanu heshiis ku nahay halka waxay anaga ii dheer xeerarka dalka u yaalla kulmiye ma wada saaree anuu isaanay inaan aliyo anoo dhex waaqa xisbiyada oo dhan anna waxaan kan doonayaa inaan ka caddeeyo marka ay tahay awoodda dowladda iyo ilaalinta xeerarka inaan dhex kahay xisbiyada si aynu shaqada wada qabanno markaynu boolatiigayno xisbi loo eegayo koofiyadda xisbiga waa halkeeda laakiin inaanan taa ku gudbinin xeerarka qaranka inaanan ku jirin xisbiyada kale waan yaqiinsanahay ilaahay hortiina waan ku dadaalaya inaan taa dhex ka ahaado saaxiibadina waxaan doonayaa inay ila dareemaan taa oo haddii aynu sharciga ku muranno aanan u xaglinayn dan xisbiga kulmiya aan lahayn malaha qaranka yaan la dhalaan beritaa la noolaan saa damba hawsha la wadaya war xeerka aan ilaalin maayaa wixii aad igu qoonsataa intaa waxa weye mawduuca inoo yaallaa waxaanu maanta doonaynaa inaynu si detail u dhammayno inu ka heshiino ra'yigaa fariin ahaan igu soo gaaray inaa qaadate oo inaa inagu ka wada hadal oo ahaa ra'yigii ka soo onkamay qolada odayaashii hore waxay idhaahdeen iyo laysku daray iyo kuwii dambe qoladii akaadimiyada ee aqoonyaanka ra'yigaa ay soo beeska u lahaayeena ah guddidii hore oon looga maarmayn waaye arag farsamo iyo labada xisbiya mucaaridkao maanta iyaga aaminsan iyo guddida sharciga ku dhisan oo aan waaye arag badan lahayn idinkuna a ka beediidantihiin inay dhibaatada taala taataan filaya sharciyan markaanu eegno waxaynu u baahan nahay si ay sharcigu u jiro inoo hirgasho in labadii la iswaafjo la iscosiiyo oo kuwii aad rabteenna la keeno waayo arrimadii aaminadda ku qabteen kuwii sharcigana aan la burburin karin yaa tana labadaa aynu iswaafajino oo aynu doorashada qabsano ra'yigaanu u fadhino halkan waa kaa kii baynu gudagelaynaa waa isu dulqaadanaynaa waa isriixriixanaynaa wixii danta qarankuna ku fadhi doorashaan kulayna waa gaaraynaa dee doodana ku jorjee annagu intaasaan meesha la nim markaa waxaan leeyahay midun baan saxayaa oo guddoomiyaha u cid waddadii aanu qaadno aanu anaskaran sharcina way ahayd saxna way ahayd ummadduna way soo dhaweysay ciidina iskumay taabsanaysa haddii waddada xurata sharci baa la raacaa sharciguna waxaa war nimankii xisbiyadii hafgaran waaye hadda wadda xisbiyadaha la furo ila dadku doorasho la-aan maaye hadday xisbiyadu heshiyaan baarlamaanka amadid ma geyn karo waana taynu ku wada fadhino marka halkana inaynu dee wixii badnaa haddii sharci la eegayo oon sharciga aanan dul qaadanayna dee maba inaa wada fadhina ila shala adiga cadgalaa khaandhale weeyaan oo dalku khiyaameeyey haddana wareen ku soo dhaweynaye dee dulqaadka dhan kala kaeg marka sharciga waynu ku wadaalaynaa waxaa dee dulqaadkuna waa kaanu kula joogo